السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idiin salaamayaa dhalinyaro. Sheekadeenna maanta waxaa inooga sheekeynayaa wiil dhalinyaro ahaa oo ku nool dalkaasi Imaaraadka Carabta. Inta aynan gudagelin sheekada, waxaan kaa codsanayaa inaad channelka noo subscribe garayso, muuqaalkana noo like garayso. Haddaba aynu gudagelno sheekadeenna. Waxa uu yidhi wiilkan dhalinyarta ahi, xilli aan jiray da'da 17 jirka, aan la joogay xaafadayada. Dhammaan waxay wada joogeen xaafadayadu guriga. Waxaa da'ayay roob weyn. Guriga ayaanu wada joognay marka uu da'ayay roobkani. Xaafadayadu waxay u qaybsanayd qolo wada joogta daaradda guriga iyo qolo ku kala jirta qololkooda. Hal mar ayaa waxaa dhacay waxa loo yaqaano biriqda ama hilaaca. Waxa aanu ku dhacay xaafadayadii. Dhammaan faamiligayagii waxay noqdeen wax suuxsan iyo wax ku jira xaalad aad u adag. In yar kadib, xaafadayadii dhammaan waa ay soo wada fiicnaadeen oo way ka soo baxeen xaaladii ay ku jireen ee suuxdinta ahayd, marka laga reebo hal qof. Halkaa qofina waa aniga. Wuxuu yidhi, anigu maskaxdaydii way joogtaa, waan maqlayaa dadkani waxay leeyihiin oo dhammaystiran, laakiin isma dhaqaajin karayo. Jidhkayga hal tallaabo ma qaadi karayo, iska daa wax kale wadnahaygu ma dhaqaaqayo. Markiiba xaafaddii waxay u yeedhay dhakhtar si loo ogaado xaaladayda caafimaad. Dhakhtarkii baa la geeyey, waxaana la ogaaday xaaladayda caafimaad ee saxda ah. Ninkii dhakhtarka ahaa waxa uu taabtay meel walba iyo halbowle walba oo qofka laga ogaado inuu nool yahay iyo inuu dhintay. Waa la rogrogay. Dhakhtar kale xitaa yimid si loo hubiyo xaaladayda caafimaad. Khalaas waa ku daayay wiilkani, ayay wada yiraahdeen dhammaan dhakhaatiirtii. Aabbahay bay gacan qaadeen, waxaanay u sheegeen in uu dhintay. Waa aniga waxay ku yiraahdeen, xaaji, allaha kaa samata bixiyo, wiilkaagii uu dhintay. Anigu waan maqlayaa wax kasta oo ka dhacaya agagaarkayga. Waan maqlayaa hadallada dadku leeyihiin. Maskaxdaydu way joogtaa, laakiin far aan dhaqaajin karayaa ma jirto. Xaafadayadii baa la i keenay. Markiiba hooyaday iyo walaaladay waxa ay ku dhufteen ooyin, iyagoo aad u ooyaya, murugoonaya, ka xun in aan cidleeyey. Aabbahay uu murugoonaya. Jidhkaygii waxaa la keenay guriga, yacni meydkaygii. waa siday iyagu aaminsan yihiin. Ilaan anigu maan dhimane, laakiin waxaan ku jira xaalad aan dhimanashana ahayn, nololna ahayn. Waxaan maqlayaa aabbahay oo dadkii faamiliga ahaa la hadlaya, u sheegaya dhimashadayda, loo tacsiyadaynayo, hooyaday oo ooyeysa, walaaladay oo aad u barooranaya, dadkii jaarka oo gebigooda warwarsan waxay leeyihiin wiil fiican buu ahaa. Qaar kale waxay leeyihiin alla inaan dhalinyaro iska ahaayo, kolley intuu xumaan sameeyeyba intuu wanaag sameeyeyba ilaahay ha u dambi dhaafo. Qaar kale waxay leeyihiin alla waxaan ku ballansanayn. Qaar kale aabbahay ayay u tacsiyadaynayaan iyagoo leh allah u naxariisto, bedel khayr qaba ilaa allah ku siiyo, iyo erayo la mid ah. Dhammaan faamiligayagii way wada yimaadeen. Qaraabadii dhammaystirani way wada yimaadeen. Korkayga haddaba la isugu wada yimid. Anigu waan maqlayaa se shaqadii ayaa la igu dul qaybsaday. Qof walba meeshu ku aadanaa ayaa loo tilmaamay. alla maxaa qof Soomaaliya oo quburaha haddii la soo baadhi lahaa la ogaan lahaa in iyagoo nool la aasay. faamiligii way kala baxeen. qolo kafantii bay doontay, qolana qabrigii bay soo qodayaan. aniga haddii maskax ahaantayda loo eego, qaylada ka baxaysa iyo murugada iyo inaan leeyahay iga daaya, qayladayda haddii ay maqli lahaayeen even xayawaanada aan waxba fahmin ayaa carari lahaa. haddaba tii u darnayd waa tane. qabrigaygii baa la soo dhameeyey, waa la i maydhay, waa la ii ducaynayaa. dhammaan xaafaddii, jaarkii, faamiligii dhammaan ani ii wada ducaynayaan. war waan noolahay, niyadda waxaan ka leeyahay waan noolahay. bes khalaas, qabrigaygii waa la soo dhameeyey. waxa hadhayuun in aniga laygu rido. haddaba gaadhigii baa lay saaray, waa laysii wadaa. intaas waan qaylinayaa. mar quraata ayaa waxa la isoo hormariyey wixii aan dembiye sameeyey iyo wixii aan wanaagay sameeyey. waata la yidhaahdo qofka markay naftu ka sii baxayso ayaa waxaa lasoo hormariyaa dhammaan acmaashiisii uu sameeyey. waxaa la isoo hormariyey dhammaan acmaasha sameeyey, wanaag ha ahaadeen ama xumaan ha ahaadeene. niyadda waxaan ka leeyahay ilaahow mar qurun isoo kici, ilaahow waan kuu toobad keeni doonaa. waxaan noqday
qalbigaygii sidii qof sii dhimanaya dadkani ma oga waa la isii wadaa harraha layga fadhiyaa waa laysii gelbinayaa aniguna waan ooyayaa waxaan leeyahay waridaaya war waan noolahay yaa ku maqlayahe qabrigii baa lay dulgeeyey kafanba waxay iigu xidhxidhan tahay sida xabad suwaarmoo la duuduubay xitaa xadhig baa la ii raaciyey isma dhaqaajin karayo xitaa haddii aan soo noolaan lahaa inaan gebigiis wada dhaqaajiyo mooyaane isma wada dhaqaajin karayo qabrigii baa sidaa laygu riday markii sidaa laygu riday ee iilkii la ii dhigay dhowrkii majarafadood ee u horreeyey la igu rogay waa taa qofka markaa la aasayo iilka lagu rido dhowrkii qof ee iilka dhigay ayaa ku banada oo ciidda iyo waxaan saara markii dhowrkii majarafadood ee u horreeyey laygu soo riday ayuunbaa mar quraata ilaahay ii soo celiyey awooddii waxaan dareemay inaan isdhaqaajin karayo waxaan ahay nin xidhxidhane markii baan isku dayey inaan isdhaqaajiyo inaan sira gilgilo haddaba dadkii qabriga qodayey kuwii aasayey kuwii dul taagnaa waxay arkeen anigii hoosta dhaqaajinaya waayo si kale iskuma dhaqaajin karayo waan xidhxidhanahay kafan baa waxay igu xidhxidhan tahay sidii waayaha haddaba waan sira dhaqdhaqaajiyey hadalkii baan haddana dareemay inuu ilaahay hadalkii ii furay waxaan u qayliyey qayladii igu jirtay oo idil oo waxa layga soo maqlayey intaas oo kiiloomitir dadkii waxay noqdeen in cararta in baxsata in suuxda laftarkooda aabbahayga iminka ii ooyayey wuu cararay wuu baxsaday war soodinkii doonaya iminka inaan soo noolaado soodinkii nolosha ila jeclaa maxaad iiga cararaysaan war waan noolahay ayaan ku qaylinayaa buu yidhi markii dadkii ini fogaatay ayay ini caqli soo galay oo yiraahdeen war ninku wuxuu lahaa waa noolahaye bal inagu celiya markii baa laygu soo noqday kafantii baa layga furfuray xaafadaydii baa laygu soo celiyey hooyaday barooranaysay walaaladaydii ooyayey waxay noqdeen kuula yaaban soo noqodkaygan dadkii jeclaa inaan nolosha u sii noolaado haatan way ga baqanayaan dadka qaar ba ay rumaysan la dadka qaar ba waxay moodayaan ruuxaan inaan ahay qofku markuu dhinto saa uu ku dhintay uu yahay markaa waxa ugu muhiimsan aynu ka qaadanaynaa waxa weeyaan ninkaa in ilaahay u tusay awoodii dhimashada yacni dib waa la dilay dib baa loo soo nooleeyey macnaheedu weeyaan wiilkii waxa uu yidhi hadda waxaan ahay nin ahlu cibaada waxaan u cibaadaystaa sidii qof intuu dhintay la soo nooleeyey haddaba fikraddaadu maxay kula tahay xagga hoose kommentiga nagula wadaag aad baad mahadsan tahay waxaan kaa codsanayaa inaad channelka noo subscribe garayso muuqaalkana noo like garayso aad baad mahadsan tahay